war degdeg ah ciidamada Ethiopia ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay dhammaan garoomadii diyaaradaha gobolka Gado saddex degmo ayay hore u hayeen laakiin laba degmo oo hor leh ayay maanta la wareegeen garoomadii diyaaradaha ee magaalooyinkaasi haddaba warbixintan waxaan rabaa inaan kula wadaago garoomada ay la wareegeen kuwii ay hore u joogeen iyo dhaqdhaqaaqa ay wadaan iyo waxa u sababa intaba soo dhawaada saaxiibayaal idinkuna muuqaalkan leeg noo saaro oo si share gareeya fariintan gaarsiiya dawladda Soomaaliyeed iyo cid walba ay qusayso si looga taxadiro dhagarta xabashida ee ku sii faafaysa qaybo kamid ah goboladayna oo ku yaala xuduudda dalkayna oo la wadaago Ethiopia soo dhawaada saaxiibayaal wararka ka imaanaya gobolka Gado gaar ahaan degmada Luuq ee gobolkaasi ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada Ethiopia ay la wareegeen garoonkii diyaaradaha degmada Luuq ee gobolka Gado garoonka diyaaradaha waxa la sheegay inaanay markii hore si rasmi ah gacanta ugu haynin ciidamada Ethiopia isla markaana aysan ku lahayn saldhig hase yeeshee waxa la sheegay inay tigi jireen marka iyaga wax u soo degayaan ama diyaaradaha kale ay soo degayaan hadda saaka waxa ay gibi ahaanba la wareegeen kontaroolkii garoonka diyaaradaha degmada Luuq ee gobolka Gado ciidamada Ethiopiana kuwaas oo saldhigyo ka sameystay qaybo badan oo garoonka kamid ah ciidamada garoonka la wareegay ayaa la sheegay in dhawaan ay ka soo tilaabeen xadka labada dal ciidamadu ma aysan joogin markii hore garoonka isaga iyo Kambuur Dhuubaba waxay ahaayeen garoomada diyaaradaha oo ciidamada Ethiopiaanku aan is rasmi ah gacanta ugu hayn waxaana ay tigi jireen xilliga duulimaadku uu ka soo degayo garoonka balse wararka saaka ka imaanaya degmada Luuq iyo Buur Dhuubaba waxay sheegayaan inay ciidamada Ethiopiaanku ay si rasmi ah ula wareegeen dhammaan maamulkii garoonka diyaaradaha ee magaalooyinkaasi ciidamada Ethiopiaanka ee garoonkaasi la wareegay ayaa la sheegay inay kontarolayaan dhammaan duulimaadyada soo degaya iyo kuwa baxaya sidoo kalena dhammaan dhaqdhaqaaqii garoonka ayay gacanta ku hayaan oo iyagu ay hadda la socdaan lama oga sababta ku kaliftay inay ciidamadaasi Ethiopiaanka ah ay la wareegaan kontaroolkii ama maamulkii garoonka diyaaradaha ee degmada Luuq hase yeeshee ciidamada Ethiopiaanku waxay hore ugu sugnaayeen oo ay amnigooda gacanta ku hayeen garoomada diyaaradaha magaalooyinka Doolow Baardheere iyo sidoo kale magaalada Garbaharey ee xarunta u ah gobolka Gado ma jirto faahfaahin badan oo intaasi laga helayo hase yeeshee waxa muddooyinkii dambe ay dawladda Ethiopia ay waday inay cadaadis saarto maamulada iyo degmooyinka ku yaala gobolada dhaca xuduudda oo dalkeenu la wadaago Ethiopia waxaana la sheegay in ciidamadaasi garoomada hadda lagu wareejiyay yihiin kuwa cusub oo Ethiopia ka yimid dhawaan kuwaas oo Ethiopiaanku ay sheegeen inay xoojin doonaan ciidamadooda ku sugan Soomaaliya shalay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia isaga oo sheegay in dawladdiisu ay isha ku haysto waxa ka socda Soomaaliya isla markaana isdifaaci doonto Masar ayuu sheegay inay khatar weyn ku tahay amniga Ethiopia isaga oo sheegay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ay Masaaridu ka wadaan Soomaaliya waxaana uu sheegay inaanay kaliya indhaha ka fiirsan doonin cid kasta oo khatar ku ah amniga Ethiopia talaabadan ayaa la sheegay inay ka dhigan tahay in uu doonayo Abiy Ahmed inuu faragelin ku sameeyo Soomaaliya hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeeda arrintaasi iyada oo wada dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo waaweyn oo talaabada Ethiopia wax looga qabanayo aad ba u mahadsantiin wixii warar ay ka soo kordho